maanta oo kale 26 January 1991 Jaalle Maxamed Siyaad Bare ayaa villada loola wareegay. Generaal Maxamed Faarax Ciidiid ayaa villada la wareegay. Jaalle Maxamed Siyaad Bare ayaa laga irsaday dhammaan Muqdisho iyo nawaaxigeeda. Generaal Maxamed Siyaad Bare ayaa Muqdisho iska faaruujiyay 26 Janaayo 1991 waa maalin aad iyo aad u murugo badan ay soo martay Soomaaliya iyo dhammaan dadkeeda. Muqdisho waxay la kulantay salacyo fara badan kadib markii uu ka tagay madaxweynihii ugu fiicnaa ee Soomaaliya Jaalle Maxamed Siyaad Bare. Jaalle Maxamed Siyaad Bare ayaa soo maamulayay muddo 21 sano ah. Jaalle Maxamed Siyaad Bare ayaa ka dhigay Soomaaliya mid ugu horumarsaneyd ee markaasi. Laakiin nasiib daro Jaalle Maxamed Siyaad Bare ayaa weerar iyo argagixiso ku soo weerareen. Generaal Maxamed Faarax Ciidiid ayaa ugu dambeyntii ka saaray villa Soomaaliya la wareegay. 26 January 1991 Soomaaliya waxay u tahay maalin aad iyo aad u murugo badan. Waa maalin ay shucuub fara badan ilintooda cishan waayeen, xayawaanadii duurjoogta ah ka tagay meeshii ku noolaayeen iyo dhammaan nawaaxigeeda. waa maalin ay Muqdisho ay ololeysay. waa maalin aan inaba caadi ahayn. waa maalin aan taariikh weligeed ka go'i doonin. waa maalin aan Soomaali oo dhan xasuusan doonaan. madaxweynihii xukunka militariga ku imaaday Jaalle Maxamed Siyaad Bare ayaa faaruujiyay villada asigoo laga baxsay xoog. Jaalle Maxamed Siyaad Bare ayaa u fakaday dhanka iyo Itoobiya muddo dheer uu ku noolaa Itoobiya. waxyaabaha laga maarmaanka aan la iloobi karin ee taariikhda xusaysa Jaalle Maxamed Siyaad Bare waxaa ka mid ah Jaalle Maxamed Siyaad Bare oo ah militari ayaa ciidanka militariga ka dhigay kuwa awoodda badnaa ee Afrika ama Geeska Afrika. ciidamada militariga ee dowladda kacaanka waxaa loo aqoonsaday inay yihiin libaaxyada Geeska Afrika. sidoo kale Jaalle Maxamed Siyaad Bare intuu xilka hayay waxa uu qoray Jaalle Maxamed Siyaad Bare waxa uu qoray farta Soomaaliga 1972. sidoo kale Jaalle Maxamed Siyaad Bare waxa uu hirgashay inuu furo jaamacaddii ugu horeysay ee Soomaaliya laga hirgeliyay taasoo ah jaamacadda ummadda Soomaaliyeed. Jaalle Maxamed Siyaad Bare intuu xukunka iyo xilka hayay waxa uu rubac qarni kaasoo ku dhawaad uu sameeyay Soomaaliya inay la tartanto wadamada kale ee qaaradda Afrika. Jaalle Maxamed Siyaad Bare waxyaabaha laga maarmaanka ah uu sameeyay waxaa ka mid ah taariikhdan xusi doonto mar walba la soo qaadan doono inuu ka dhigay Soomaaliya inay dal iskeed wax u qaban karta, sidoo kale wax soo saarkeeduna uu badan yahay. taariikhda xun ee Maxamed Siyaad Bare laga diiwaangeliyay waxyaabihii ugu xumaa ee Jaalle Maxamed Siyaad Bare laga diiwaangeliyay inuu dilay 10kii culimo ee ka soo horjeestay xeerkii dhaxalka. Maxamed Siyaad Bare ayaa go'aankiisa fuliyay. muddo dheer uu kaliitilisnimo ku haystay villa Soomaaliya uu sagana jiray villa Soomaaliya 21 sano. 1991 January waxaa soo idlaaday dhammaan waayihii wanaagsanaa ee Jaalle Maxamed Siyaad Bare iyo dhammaan waayihii wanaagsanaa ee ummadda Soomaaliyeed. Generaal Maxamed Faarax Ciidiid oo ah dagaalamayaasha la dagaalamay Jaalle Maxamed Siyaad Bare ayaa ugu dambeyn go'aansaday inuu ka saaro, taasina wuu ku guuleystay inuu ka saaro. Generaal Maxamed Faarax Ciidiid ayaa villada la wareegay asiga iyo ciidan kale oo hubeysan. 21 sano muddo 22 sano ku dhawaad ayaa laga joogaa ka tagitaankii Soomaaliya uu ka tagay Jaalle Maxamed Siyaad Bare, waxayna ku jirtaa istiil weli dagaaladii sokeeyay. Maxamed Siyaad Bare gadaashiisa waxaa soo martay ku dhawaad 8 madaxweyne ilaa haddana waxay ku jiraan dib u heshiisiin. 15 shirar oo kala duwan oo la soo galay kaasoo ah dib u heshiisiin ayaa weli lagu dheefi lahayaa Soomaaliya. Soomaaliya goormee soo kaban doontaa? goormee noqon doontaa Soomaalida la aqoonay? goormeen la tartami doonaa ficeena? goormeen anaga iska dhicin doonaa ficeena? goormee wadankeena uu noqon doonaa wadankii Soomaaliya oo Maxamed Siyaad Bare maamuli jiray? waad ku maasantahay daawashadaada iyo jaanqaadkaada sidaad nala socotay. fadlan haddii ay tahay markii ugu horreysay page-keena soo booqatay, fadlan like saar, share asxaabtaadan la wadaag. mahadsanid.